Maxkamadda Ciidamada Dowlad Goboleedka Puntland ayaa saakay oo Axad ah xukun dil toogasho ah ku fulisay rag fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo horay maxkamaddu xukunno dil ah ugu riday goob fagaare ah oo ku taalo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu toogtay 18 xubnood oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilal qorsheysan qaraxyo lagu dilay mas'uuliyiin ka tirsan Puntland. Saraakiil ka tirsan Maxkamadda Ciidamada Puntland ayaa goobjoog ka ahaa goobta xukunka dilka toogashada uu ka dhacayay. Waxaa xubnaha la toogtay dhammaantood la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Faysal Axmed Bashiir Gujis, Maxamed Xaashi Muumin Abudayib iyo Maxamed Cali Cooke Jeeri ayaa ka mid ahaa xubnaha saakay xukunka lagu fuliyay, kuwaa oo horay loogu soo qabtay howlgallo la sameeyay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta ay taariikhdu tahay 27 Juun waxaa la fuliyay 18 xukumane oo ahaa khawaarijkii banaysanaysay dadka dhiigooda sida arxandanada u leenaysay ayaga dhuumashay wax ku dilayeen, laakiin dawladdu waxay u dishay si bareer ah nimanka dhuumashada wax ku dila. waxaan oran lahayn dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug waa tuug dhuumanaya war hooy baa ku filan. Hadda kadib ha ka baqina waa ciistaas arxandarada dadka u disho tuugnimada ku dilaysa. 18 xukumane oo ku xukunaa dilka toogashada oo processkooda muddo u soo socday maxkamadiina u dhamaadeen inaanu wakiil uga noqonay dawladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ciidamada iyo shacab weynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dawladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay. waxaan u mahadcelinaynaa si weyn ugu mahadcelinaynaa ciidankii ajarka shaqaystay oo camalka khayrka badan qabtay oo wakiilka rasmiga naga noqday oo gacan barakaysan oo sidii loo talagalay shaqada u qabtay. waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fikira ummaddan dhiigeeda inuu daadiyo waxa u dambaysa sidaas oo kale mana waabanayno sidii horeyaan wax lama wadin. Waa markii ugu horeysay oo Puntland xukun dil toogasho ah ku fuliso in ka badan 15 xubnood oo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab isla markaasna ay fuliyeen dilal qorsheysan iyo weeraro qaraxyo oo mas'uuliyiin iyo dad kala duwan lagu dilay.